Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. soo ifbixidii baraha bulshadu waxa ay bedeshay qaab nololeedka dadka dunida ku nool. waxa isbedelay nidaamkii iyo xariiqdii nolosha caadiga ah ay ku socotay ganacsiga, tebinta wararka, wada sheekaysiga iyo sidoo kale madadaalada ayaa dhammaan ku soo aruuray baraha bulshada, waxayna noqdeen goobo lagu bixiyo waqti aad u badan iyaga oo inoo noqday maandooriye aynan weli ku baraarugin aafada ay ku hayaan nolosheenna. haddaba sidee inoo saameeyeen baraha bulshadu, sidee u bedeleen nolosheenna, sidee inoogu noqdeen maandooriye ay adag tahay inaynu ka maaranno. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaal aynu ku lafaguri doonno saamaynta aan suubanayn ee ay nagu hayaan baraha bulshadu. magacaygu waa cabdiraxmaan cumar, halkanina oo waa Bari Media. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. baraha bulshada waxaa adeegsada in ka badan 4 bilyan oo qof, waa qiyaastii 53% dadka caalamka ku nool. sikin kasta waxaa ku soo biira 15 qof oo cusub, waxaana la saadaalinayaa sanadka 2025 in tiradu gaarto 5 bilyan oo qof. waa tiro aad uga badan intii la qiyaasi karay 10 sano ka hor. waxaa sidoo kale sare u kac badan laga dareemayaa adeegsiga taleefanada casriga ah. baraha bulshada oo ay dadku u isticmaalaan qaabab kala duwan ayaa waxa ay qofka ka qaataan waqti aad u badan. daraasad la sameeyey sanadkii 2020 ayaa lagu sheegay in celcelis ahaan qofku maalintii ku bixiyo ku dhowaad 150 daqiiqo isticmaalka baraha bulshada. qaaradaha Latin America iyo Afrika ayaa la sheegaa inay yihiin meelaha waqtiga ugu badan lagu bixiyo isticmaalka baraha bulshada. dadka ku nool Latin America ayaa celcelis ahaan maalintii adeegsada 3 saac iyo bar. marka la isku geeyo guud ahaan waqtiga ku baxa waa in ka badan 200 daqiiqo maalintii, halka qaaradda Afrikana qofku maalintii ku bixiyo waqti gaaraya 3 saac iyo 10 daqiiqo. Yurub iyo waqooyiga Mareykanka, warbixin ay ka daabacday shabakadda xogaha ee Weblandex ayaa lagu sheegay in dadku ku bixiyaan maalintii ku dhowaad 2 saacadood celcelis ahaan adeegsiga baraha bulshada. guud ahaan dadka caalamka ku nool ayaa maalintii ku bixiya waqti gaaraya 10 bilyan oo saacadood adeegsiga baraha bulshada. Facebook ayaa noqday barta ugu weyn dhanka macaamiisha isticmaasha iyo waqtiga lagu bixiyo. waxaa adeegsada ku dhowaad 2.7 bilyan oo qof, waxaana maalintii la isticmaalaa waqti gaaraya 58 daqiiqo ilaa 90 daqiiqo celcelis ahaan. inta badanna waxa ay dadku u isticmaalaan qaab la qabsi ah oo qofka ku noqonaysa sidii balwad oo kale. waxa uuna markasta ka dhex raadinayaa xogo iyo warar cusub. baraha bulshada ayaa haddii uu qofku si hagaagsan u isticmaalo noqon kara il dhaqaale iyo meel uu qofku ka samayn karo fikrad ganacsi. inta badan dhalinyarada ayaa doorbida inay u adeegsadaan qaabka madadaalada iyo waqti luminta oo keliya. saacado badan ayaa lagu luminayaa ku dhex wareegidda mareegtan aan dhammaadka lahayn ee baraha bulshada oo qofka marba mawjad cusub oo aan gunteeda hoose la gaari karin ku tuuraysa. tusaale ahaan marka aad soo gasho Facebook, waxa uu markiiba ku keenayaa wixii ka dambeeyay booqashadaadii hore. daqiiqad kastana waxyaabo cusub ayuu ku tusayaa, waqtiguna adiga oo aan dareemin ayuu ordayaa. waxaa sidaa la mid ah dhammaan baraha kale ee bulshada oo u diyaarsan in qofka marba mawjad cusub loo daaro. khubarada cilmi nafsiga ayaa ku dooday in dadka maamula baraha bulshadu ay u diyaariyeen nidaam sida balwadda oo kale qofka u qabanaya qaab soo jiidasho leh oo qofka ku qasbaysa in mar walba uu gacanta ku hayo taleefankiisa, raadiyo wax cusub, sidoo kalena waqti badan uu geliyo marba barnaamij cusub in uu furo. arrintan ayaa sababta in maskaxdu ay daal badan dareento, wax soo saarka qofkuna uu hoos u dhaco, sidoo kalena caajis badan iyo ka go'idda bulshada in uu qofku dareemo. waqtigu waa hantida ugu weyn ee uu haysto qofka dhalinyarada ah. saacad kasta oo ku dhaaftana nasiib darro ma soo noqonayso. luminta iyo isdhaafinta waqtiga waxa ay ka mid tahay waxyaabaha mugdiga geliya mustaqbalka qofka, sidoo kalena yareeya hamiga uu qofku u qabo in uu nolosha ka gaaro meel sare. waxaa sidoo kale uu qofku luminayaa fursado badan oo uu kaga faa'iidaysan karo waqtigaasi uu sida cidlada ah isku dhaafinayo. ardayda iyo dadka shaqeeya ayaa waqtiga ugu badan ku bixiya isticmaalka baraha bulshada.
marka ugu horeysa ee uu qofku soo kaco waxa uu raadiyaa taleefankiisa si uu u galo shabakadaha kala duwan. sidoo kale marka uu qofku shaqada soo galo ama uu xiisad u fariisto waxa uu wehelka ugu horeeya ka raadiyaa taleefankiisa. waxa uuna waqtiga inta badan ku bixiyaa dhex wareegidda baraha bulshada. baraha bulshada iyo guud ahaan internetku waa aalad laba afle ah. qofkii kaga faa'iidaysta sida saxan waxa uu ka samayn karaa hanti, magac iyo aqoon. waa jaamacad dhan oo dhan walba oo nolosha ah aad ka baran karto. waxaa ku jira bogog si joogto ah u bixiya casharro iyo barashada xirfadaha oo lacag la'aan ah. waxaa ku jira macallimiin bixiya casharro aqoon iyo nolosha ka hadlaya oo si bilaash ah aad saacad kasta u daawan karto. dhanka kalena waa mindi af badan oo markiiba jaraysa waqtigaaga haddii aadan u adeegsan sida saxda ah. saacado badan oo noloshaada ah oo aad wax ku qabsan lahayd ayaa kaaga lumi kara isticmaalka baraha bulshada oo keliya. haddaba sidee loo yareyn karaa ama loo xakamayn karaa waqtiga badan ee lagu bixiyo isticmaalka baraha bulshada? jadwal u samaynta waqtigu waa hubka ugu wanaagsan ee uu qofku u maarayn karo noloshiisa. si aad uga faa'iidaysato waqtiga oo ah hanti qaali ah, jadwal u samay saacadaha aad isticmaalayso baraha bulshada maalintii oo dhan. in aad marba dhinac u raacdo hirarka baraha bulshadu waxa ay naftaada ka dhigaysaa mid aan wax hami ah abuuri karin. sidoo kalena ku niyad jaba buuqa iyo isdhexyaaca ka socda baraha bulshada. waxaa sidoo kale muhiim ah in qofku yeesho hadaf gooni ah oo u adeegsado baraha bulshada. tusaale ahaan raadinta xogaha, waxbarashada, shaqo raadinta, cilmi baarista iyo barashada xirfadaha. dejinta hadaf ku gooni ah waxay ka dhigaysaa waqtigaaga mid si wanaagsan u jihaysan. waxaadna maalin kasta kororsan kartaa cilmi cusub. ugu dambayn, innaga oo aan marnaba oranayn qofku ha ka tago isticmaalka baraha bulshada, haddana dhanka kale waxaa kugu hareeraysan nolol ka ballaaran midda ka jirta shabakadaha baraha bulshada. qofku inuu isku dhiibo keliya isticmaalka baraha bulshada ayaa ah dhaqan aan marnaba nolosha maanta iyo midda beriba aan u wanaagsanayn. naftaada mar kale qiimay. imise saac ayaad maalintii ku bixisaa adeegsiga baraha bulshada? meeqa barnaamij ama application ayaa ku jirta taleefankaaga oo aad si maalinla ah u adeegsataa? imise barnaamij oo ka mid ah ayaa noloshaada faa'iido ku soo celiya? isqiimaynta iyo miisaamidda aad ku samaysid waqtiga kaaga baxaya baraha bulshada ayaana noqonaysa tallaabada ugu horeysa ee ku tusaysa halka aad taagan tahay iyo sixidda kugu habboon. haddaba gunaanadka muuqaalkeenna noogu reeb kommentiga hoose ee muuqaalkan inta saac ee kaaga baxda maalin walba adeegsiga baraha bulshada. haddii uu ku qanciyey muuqaalkuna la wadaag asxaabtaada. sidoo kalena haddii aad nagu cusub tahay oo aadan nagu soo biirin ha ilaawin inaad taabatid calaamadda subscribe oo aad ka mid noqotid kumanaanka aan ku bahownay madashan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.